أفكي تاسع اسبوعكو أنا أفكارني تصال لكن bisinka fiora exof تمالي وجاك شهافك فروها هلو Miss Wall ayaa ka soo hadashay afdurashada islamarkaana muuqaalkan ayaan idinkula wadaagayaa iyadoo ka hadasha xaaladii adkeed ee ka soo baxday mar qura ayay dareentay xaalad xanuun badan islamarkaana muddo 2 toddobaad ah ee ku jirta bartamaha isbitaal ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Miss Wall oo caan ka ah barta TikTok islamarkaana guud ahaan social media oo dhan aad looga yaqaan ahna gabar ku nool caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa mar qura waxay qurux kale ka raadishay doorashada faruuryaha taasoo muddooyinkii dambe laga hirgeliyay caasimadda Muqdisho ayaa maalmihii dambe waxaa lagu soo kordhinayay meelo lagu qurxiyo afka, wajiga iyo sidoo kale xubinta taranka. Tan ayayse mar qura waxay ka dhalatay dhibaato aad u weyn taasi oo noqotay mid baaxad weyn. Maanta ayaa la caafimaadkeeda siiyay islamarkaana muuqaalkan ayay ka soo muuqatay gabadha lagu magacaabo Miss Wall. Ayadoo muuqaalkan soo fadhiisata ayaa sheegtay islamarkaana dadka Soomaaliyeed ay uga digtay iyo gabdhaha oo dhan in aan lagu kadsoomin ama aan lagu sirmin dhibaatadii ku dhacday islamarkaana xaaladda daran ay ka soo wajahday maanta. Miss Wall oo caan ka ah social media ayaa mar qura 2 toddobaad xaalad caafimaad darro u gashay doorashada faruuryaheeda. Hadda waxay tiri Allah ayaan ku mahadinayaa islamarkaana dib caafimaadkayga ugu soo celiyay. Kuwii igula taliyay iyo kuwii igu yeeray inay caafimaadka leh hayaan ayaan aaminayay tiri in dhammaantood bay ahaayeen kuwo beenayaal ah. Aniga ayaa ku dhuma halkan ee walaalahayga Soomaaliyeed waan idin jeclahay tiri waxaana idinkaga digayaa xaaladan oo kale inay idinku dhacdo. Waxyaabaha la yaabka badan ayaase waxay ahayd in Alle quruxdii uu siiyay mar qurux beenaalayaal aadama ay sameeyeen inay ku qanacdo. Gabdho kale ayaa ku kadsoomay kuwaas oo Soomaali ku nool caasimadda gudaha Muqdisho. Laakiin tan ayaa waxay u noqonaysaa fariin dheer oo Miss Wall ka timid. Bal aan wada daawana muuqaalka Miss Wall iyo sidoo kale waxyaabihii ku dhacay.